Asalaamu calaykum, magacayga waa Suhayb Aadan. Waxaad nagala socotaan Durban Media. Waxaan ka hadli doonaa gumaystihii soo maray dhulka Soomaalida. Gumaystayaashii soo maray Soomaaliya waxay ahaayeen quwadii reer Yurub ee qabsaday dhulka Soomaaliyeed xilligii gumaysiga qarnigii 19aad ilaa qarnigii 20aad. Soomaaliya waxay soo martay 3 nooc oo gumaysi ah. Gumaystihii koowaad boqortooyada Ingiriiska. Ingiriisku wuxuu qabsaday waqooyiga Soomaaliya oo hadda loo yaqaan Somaliland sanadkii 1884. Kadib markii ay heshiisyo la galeen qaar ka mid ah hogaamiyayaasha deegaanka, qabsashadoodu waxay la xiriirtay danahooda xagga ganacsiga iyo ilaalinta marinbadeedka muhiimka ah ee badda cas. Inkastoo ay iska caabin kala kulmeen gaar ahaan dagaalkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, waxay maamulkeeda sii haysay ilaa ay xorriyadda qaadatay 26 Juun 1960. Gumaystihii labaad ee Talyaaniga. Talyaanigu wuxuu qabsaday koonfurta Soomaaliya sanadkii 1889 isagoo heshiisyo la galay boqortooyadii Zanzibar oo xilligaas xukumi jirtay xeebaha Soomaaliya sanadkii 1908. Talyaanigu wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay in Soomaaliya ay tahay gumaysti toos ah. Waxaa jiray kacdoonno badan, gaar ahaan midkii Sheekh Xasan Barsane iyo hogaamiyayaal kale oo Soomaaliyeed. Talyaanigu wuxuu xukumay koonfurta ilaa xorriyaddii 1 Luulyo 1960, markaasoo ay midoobeen British Somaliland iyo Italian Somaliland si loo sameeyo Jamhuuriyadda Soomaaliya. Gumaystihii saddexaad ee Faransiisku wuxuu qabsaday Jabuuti sanadkii 1862 kadib heshiisyo ay la galeen beelaha deegaanka. Jabuuti waxay si rasmi ah u noqotay gumaysi Faransiis ah sanadkii 1896 waxayna sii ahaanaysay ilaa ay si buuxda uga xorowday 27 Juun 1977 kadib afti dadweyne. Dhibaatooyinkii gumaysigu uu u geystay Soomaaliya waxaa ka mid ah dhul-boob iyo kala qaybin ummadeed, dagaallo iyo iska caabin dhiig badan ku daatay, dhaqaale burbur iyo horumar oo dib u dhacay. Horumarka oo dib u dhacay, gumaysiga maskaxeed iyo mid dhaqaaleed iyo mid dhaqameedba. Haddaba aan fiirino urur siyaasadeedkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ka hirgalay iyo doorkii ay ka qaateen xornimadii Soomaaliya. Ururkii SYL Somali Youth League wuxuu ahaa xisbigii ugu horreeyay ee siyaasadeed oo ka hana qaada Soomaaliya, wuxuuna door weyn ka qaatay xornimadii dalka. Taariikhda SYL waxaa la aasaasay 15 May 1943 magaalada Muqdisho, xilligaas oo Soomaaliya ay hoos tegaysay gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga. Ururka waxaa markii hore loo yaqiin Somali Youth Club SYC, balse sanadkii 1947 waxaa loogu bedelay Somali Youth League SYL si uu u noqdo xisbi siyaasadeed rasmi ah. Ujeedooyinka SYL waxay la dagaalantay gumaysiga waxaana u halgameen xornimada Soomaaliya. Waxay doonayeen in dhammaan gobollada Soomaaliyeed ay midoobaan oo ka hoos baxaan gumaysiga. Midnimada Soomaaliyeed waxay ka soo horjeedeen qorshihii lagu kala qaybinayay dhulka Soomaaliyeed. Horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga waxay taageerayeen adeegsiga afka hooyo oo ay u arkeen inuu yahay astaanta qarannimada. Hogaankii SYL ururka wuxuu lahaa 13 asaasayaal oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Xaaji Cismaan, Cabdilaahi Ciise Maxamuud, Maxamed Faarax Hilowle, Maxamed Xirsi Nuur. Cabdilaahi Ciise Maxamuud wuxuu noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee SYL, wuxuuna door weyn ka qaatay wadaxaajoodyadii xornimada Soomaaliya lagu helay. Doorkii SYL ee xornimada SYL waxay si weyn uga shaqaysay